ولا شيء قال جانوي فاضم برامبر فاضم محاورن سوالات سير وما تصنت هاي الحمد لله وأرك دلالة صوبسين ورئيسية أديتين أنا قلت الحمد لله أمد الصوماليات وحقيقة تبوس وين أو قلبي جيجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام ولا له شرفت أكو حيران channel كيجا سمير كوين channel meel kastoo dunida dacaladeeda iyo daafaheeda aad ka joogtaan cimri dheer iyo cibaado san iyo caafimaad qab baan idin rajaynayaa ugu horreyntii aan ku sallino xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam marka xigta maanta iyo muuqaal cusub maanta waxaan rabaa inaan in yar ka hadlo arrintii walaasheen Faadmo Buraanbur aan horeyna uga hadlay walaalo badan oo Soomaaliyana ay ka hadleen Soomaaliduna ay siyaabo kala hadleen qaar si wanaagsan uga hadleen qaar maaragtay ay balaayo saadiyeen qof walba sidii uu rabay ama markaa la qumanaatay uu uga hadlay haddii aan mar labaad dib idin xasuusiyo Faadmo Buraanbur waay ولا شيء قال جانوي فاضم برامبر فاضم محاورن سوالات سير وما تصنت هاي الحمد لله وأرك دلالة صوبسين Buraanbur waay Faadmo Buraanbur waa gabar Soomaaliyeed waa gabar muslimad waa gabar taqiyada waa gabar qalbi wanaagsan alxamdulillaah ilaahay iimaankeeda iyo qalbigeeda ha uu siyaadiyo waa gabar samir badan waa hooyo Soomaaliyeed oo sida aan intii la socotay la socono intii kalena aan hadda ugu celinayo hore looga qaatay 7 caruura cunugii 8aadna markii ay dhashay ama ay umushay isbitaalka looga qaatay qof walba uu dareemaya xanuunka ay leedahay iyo dhibaatada iyo murugada iyo urkutaalada qof kasta oo muslim iyo qof kasta oo Soomaaliyana waa ula dareemaya waan u ducaynaynaa horeyna waa ugu ducaynaynaa haddana ducadeena waa si laba jibaarina insha Allah ta'ala intaas markii aan ka soo tago waxa maalmahanba ay maaragtay baraha bulshada la isla dhexmarayay Faadmo koomay ku jirtaa dhig baa madaxa ku furay dhinac waa dhacay waa sakaraad isbitaalka taala alxamdulillaah dadka xumaanta saadinaya ama xumaanta buunbuuninaya waxaan leeyahay waxaa mudan in la buunbuuniyo wanaaga buunbuuniya xumaantana iska dhaafa walaashin xumaan ha u saadin qofku markii uu dhib haysto oo dhib ku dhaco waxa weeye in lagu tigtaa ma fiicna in aad ku sii dhaqdhaqaajiso warankana wax fiican ma ahan waxa fiican in la garab istaago niyada loo dhiso loo duceeyo sida ay maaragtay horey baan ugu ducaynay ama dad badan ay uga falceliyeen ama ugu ducaynayeen walaashin alxamdulillaah kooma kuma jirto mana jirana oo jiro hadda umusha iyo foosha iyo xanuunka iyo ilmihii oo la qaatay kuwii hore maqnaa xakaarkaas jiro ka siyaadsan ma qabto alxamdulillaah xanuun way dareemaysaa anaguna waan dareemaynaa keedana kun jeer ka badan kaan dareemayno kaligeedna ma ahan markii laga soo tago ummadda Soomaaliyeed odaygeedii familkeedii waxa weeyaan xanuun gaar ah oo kan anagoo dhan dareemayno ka siyaada ayay dareemayaan ayagu Faadmo haddaba in ay caafimaad qabto oo xaaladeeda caafimaad ay fiican tahay gurigeedii joogto waxa noo cadeeyay oo soo wareystay oo gurigeeda ugu tagay DJ Subeer waa qof caan ka ah ama wiil caan ka ah bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda wareysigii dhexmaray iyo waxyaabihii ay ku tirina nala dhageysto فاضم برامبر فاضم محاورن سوالات سير وما تصنت هاي الحمد لله وأرك دلالة صوبسين ورئيسية أديتين أنا قلت الحمد لله أمد الصوماليات وحقيقة تبوس وين أو قلبي جيجا وحكوما كومجرو هويو وانا هاي وان حنوسنا هاي لك سهدنا الحمد لله سيدا أو السوشيال ميديا لقى وضو اللي يكون يكون يلا نخصص كوضا أنا صمد ما كبرنا أنا إن شاء الله إسلام دانا صبر أنا الفرق ما شاء الله وما تسنتي هذا ما تسنتي فرنتي وين قلت لي ولا شيء بالفعل تعود كذا وينك مغلى دعادنا دعادنا ما شو كسوة أبتيتنا وين صوصنا هذا كله واجب أنا وحن فرنتي كجرزيني يري وين سيبها وينك ما شاء الله meel kasta jooga kuwa codka soo duubay kuwa qoraalada soo marka walaalahayga Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay culays kasta fudayd baa ka dambeeya in macal usri yusra weeye
farajkii wuu dhow yahay gabadha yartaa oo la qaatay insha allahu tacaala waxay faraj ama sabab u noqon doontaa kuwii kale soo celintoodii. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa maalin dhow sidooddoodii oo wada dhan in ay dib u soo laabtaan gurigiina uu camirno uu noo camirmo oo iftiinkii iyo quruxii iyo fafaalihii wanaaggii farxaddii noloshii caafimaadkii niyad samidii waalidkii iyo ilmihiisa isku faraxsana ay mar labaad dib u soo noqdaan maalmihii murugadana ay haraan insha allahu tacaala. maalin dhowna way imaanaysaa taas hadduu ilaahay yiraahdo biidnillaahi kariim. dadka xumaanta wadana waxaan leeyahay xumaanta kawaan toob oo khayr u rajeeyo walaasheen ajar adinkuna waad ka helaysaan una duceeye. culaysku markuu bato bini aadamku ilaan daciif baan nahay waxba ma qaban karna. intuu culaysku bato xagga la fiiriyo xagga wax lagu dayo xagga loo ordo waxba la qaban waayo oo bini aadamku intuu isdhiibo uu yiraahdo ilaa arrinkaas adaa ku caalima anigu waxba kama qaban karo markaasaa ilaahay farijka furaa. inta ay bini aadamku inay wax qaban karaan isku dayayaan xoogaa arrintu way adag tahay. laakiin markii aan ilaahnimada qirno oo inaanan rabbi mooye aanan anaga waxba ahayn oo rabbi awoodiisa wax ku nahayo asagu inuu faraj noo furo maayo aanan anaga waxba qabsan karin aan qirno daalno waxba qaban weyno arrintu meel walba ay ka cakiran tahayna farajka ilaahay oo dhawaayan awalba naga dheerayn baa imaanaya insha allah. maalin dhow farajka wuu imaanaya farxadna waan isku wareysan doonaa mar labaad iyo mar saddexaad ba hadduu ilaahay idmo. faadmana waxaan u rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad qab iyo caruurteedii oo dhaqso soo laabatay dhammaantood insha allahu tacaala. ducada un laba jibaaro ducada marna ha ka daalinina ducada qof walba meeshiisa mas-uuliyada iska saaro ducadana ha ka laba jibaaro. waxa weeyaan arrinkan oo arrin soomaaliya oo dhan haysta waa arrin wada haysta waa arrin inta uu ku dhacay maahana inta kalena ay leedahay talow goormuu kugu dhicin. waxa weeyaan dhul shisheeyaan joognaa dhul aanan dhaqankiisa iyo diintiisa iyo sharciyadiisa midna aanan aad u aqoonin baan joognaa dhul aanan isku diin ahayn baan joognaa sharciyo kala duwan baa wadamada ka jira awlaad baa la haystaa. qaabkii annagana lagu maaragtay dhaqankii waddankeena ka jiray iyo yaan maaragtay carradii la nimid wax badan baa isdiidan. marka hala dadaalo ilaahina aan kaashano ducadana meeshiini kasii wada walaasha insha allah awlaadeedii iyo walaalkayba way u imaanaysaa. dhegeysta suleer waa mahadsan tahay alxamdulilah waa arkay dadaalada suubiseen waraysiyada aad digteen. aniga horta alxamdulilah ummadda soomaaliyeed waxay iga degtay boos weyn oo qalbigayga wax koomaa kuma jiro. hooyo waanahay waan xanuunsanahay laakse haddana alxamdulilah sida oo social media laga wado oo inaan ka wada soo kacno ana samirna ku darno anaga inshallah islaam dana samirna la faray maasha allah waa mahadsantihiin aad mahadsantihiin. farinta waan iga gudbiyay walaashay way fiican tahay codkeeda weyni ka maqla. ducadiina aad iyo aad ducadina meesha kasii wada updatena weyn soo samaysa iskale waa waajibtaa. anna waxaan fariinta kaa gaarsiinaya yar iyo weyn siiba haweenka oo meel kasta jooga kuwa codka soo duubay kuwa qoraalada soo duubay. marka walaalahayga soomaaliyeed waxaan idin leeyahay culays kasta fudayd baa ka dambeeya inna macal cusri yusra weeye. farajkii wuu dhow yahay gabadha yartaa oo la qaatay insha allahu tacaala waxay faraj ama sabab u noqon doontaa kuwii kale soo celintoodii. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa maalin dhow sidooddoodii oo wada dhan in ay dib u soo laabtaan gurigiina uu camirno uu noo camirmo oo iftiinkii iyo quruxii iyo fafaalihii wanaaggii farxaddii noloshii caafimaadkii niyad samidii waalidkii iyo ilmihiisa isku faraxsana ay mar labaad dib u soo noqdaan maalmihii murugadana ay haraan insha allahu tacaala. maalin dhowna way imaanaysaa taas hadduu ilaahay yiraahdo biidnillaahi kariim. dadka xumaanta wadana waxaan leeyahay xumaanta kawaan toob oo khayr u rajeeyo walaasheen ajar adinkuna waad ka helaysaan una duceeye. culaysku markuu bato bini aadamku ilaan daciif baan nahay waxba ma qaban karna. intuu culaysku bato xagga la fiiriyo xagga wax lagu dayo xagga loo ordo waxba la qaban waayo oo bini aadamku intuu isdhiibo uu yiraahdo ilaa arrinkaas adaa ku caalima anigu waxba kama qaban karo markaasaa ilaahay farijka furaa.
inta ay bini aadamku inay wax qaban karaan isku dayayaan xoogaa arrintu way adag tahay laakiin